وسلاسة أفري طبعاً بيشك واسنة كلامه كوني لواتن برامج كبندق راديو جنا قطبة عن الكوس وقبل دور وحاكم الدولة إيران والشيكتين حرن نور قف أو ديي إن مسؤول كاين سوريدت ديارة يوكرين آيلاندز كسر عليه لوان دالكاسي أو إنك بدن بقول يتدوات قف ريكو جريودين sidoo kale waxaan idinnahay wada hadalladii Liibiya xaaladeeda ku saabsan oo ruushka ka socdayna waxa la sheegay in lagu kala kacay aydoon wax xal laga gaarin Mareykanka waxa uu dalkiisa ka saaray 22 kamid ah ardayda Sacuudiga ee tababarka ciidan ku qaadanaysa dalkaasi kadib weerarkii bishii hore ka dhacay saldhigga ciidamada cirka Mareykanka ay ku leeyihiin gudaha dalkaasi Francisco iyo Shandalo Afrika dhinaca galbeed ku yaaran waxay ku heshiiyeen inay si wada jir ah ula dagaalamaan argagixisada gobolka Saaxil shiicada dalkaasi Ciraaq waxa la sheegay inay ku midoobeen sidii Mareykanka looga saari lahaa dalkaasi Ciraaq kadib dilkii General Qasim Sulaymaan iyo xiisadii gobolkaasi ka dhalatay wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy waxa uu ka jawaabay hadal Trump ka soo yeeray oo ku saabsanaa bilada nabadda ee Nobel Peace Prize oo Trump sheegay inuu asaga u qalbiyo qodobkeen ugu horeeya haddii aan sii guda galo mas-uuliyiinta dalka Iran waxay sheegeen inay xireen dhowr qof oo lagu eedeeyay inay mas'uul ka hayeen in la soo rido diyaaradii Ukraine Airlines dhawaan dalkaasi ku burburtay kadib markii lala helay gantaal dhowr qof ayaa la sheegay in lagu xiray dalka Iran kuwaas oo lagu eedeeyay inay mas'uul ka hayeen shilkii diyaaradii Ukraine Airlines oo gantaal lagu dhaftay sida saraakiisha dhanka cadaaladda ay sheegeen afayeen u hadlay militariga ama ilaalada kacaanka dalkaasi oo Ghulam Hussein Ismaaciil lagu magacaabo ayaa sheegay in baaritaanka dhacdadaasi uu yahay mid soconaya intaas faahfaahin ka badanna ma uusan bixin madaxweynaha dalkaasi Iran Xasan Rouhani waxa uu sheegay in baaritaanada ay yihiin kuwo gudaha iyo dibadda laga sameeyo ama ka soconaya sidoo kale maxkamad gaar ah loo xil saaray kiiskaasi inay dhageysato diyaaradda ay leedahay shirkadda Ukraine International Airlines oo duulimaadkeedu ahaa BS 752 ayaa dhulka la soo dhigay wax yar uun kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee magaalada Tehran ee Imam Khomeini arbacadii aynu soo dhaafnay taasi oo la sheegay inay ku geeriyoodeen 176 qof oo diyaaraddaasi la socday inta ugu badan dadka diyaaraddaasi ku geeriyoodayna waxay ka soo jeedeen dalalka Iran iyo wadanka Canada maalmihii ugu horeeyay ee shirkaasi dawladda Iran waxa ay sheegtay in ay dafirtay inay mas'uul ka ahayd diyaaraddaasi hase yeeshee baaritaano dheeraad ah oo la sameeyay ugu dambeyntii xukuumadda Tehran waxa ay qiratay inay mas'uul ka ahayd diyaaraddaasi in la soo rido markii gantaal lala helay madaxweyne Rouhani waxa uu sheegay in ay tahay musiibo aad u weyn isla markaana uu ku eedeeyay inay mas'uul ka hayeen shakhsiyaad uu sheegay inay ka mas'uul yihiin waxa sidoo kale tan iyo markii ay soo baxday shilka diyaaraddaasi oo dadka ku dhintay ay kamid ahaayeen muwaadiniin Ingiriiska u dhashay ra'iisul wasaaraha wadankaasi Boris Johnson waxa uu BBC-da u sheegay maanta oo Talaada inuu ku faraxsan yahay dawladda Iran ay qirato in mas'uuliyadda diyaaraddaasi burburkeeda waxa uu sheegay in uu kala shaqeyn doono haddii Ingiriiska yihiin sidii loo soo gabagabeyn lahaa shilkaasi iyo arrimihii ku tacalluqay wasiirka arrimaha dibadda dawladda Ukraine Vandam Besteko waxa uu maalintii Isniintii sheegay in 5 dal oo muwaadiniintooda ay ku geeriyoodeen diyaaraddaasi ay kamid yihiin Canada, Ukraine, Afghanistan, Sweden ay qayb ka yihiin dadka ku kulmi doona oo arrinkaasi ka wada hadlaya maalintii Khamiista ee soo aadan waxaana ay tahay ujeedka sidii hawshaasi ama loo soo gabagabeyn lahaa isla markaana sharciga loo horkeeni lahaa dhammaan dadkii ka mas'uulka ahaa in diyaaraddaasi Ukraine Airlines dhulka la soo rigo oo ay burburto
barnaamijka bandhiga ayaad la socotaan. dowladda Faransiiska ee shan dal oo Afrika dhinaca galbeed ku yaalan waxa ay ku heshiiyeen la dagaalanka kooxaha argagixisada ka jira gobolka saaxil kadib shir madaxeed dalalkaasi dhinaca Afrika galbeedkeeda ka socday iyo Faransiiska ee uga qabsoomay magaalo Faransiiska ku taala. wararka warbixinadaasi ama wakaaladaha wararkii ay ka qoreen kulankaasi waxaa gacanta ku haya Cabdirasaaq Sheekay. Cabdirasaaq, waa mahadsan tahay. Faransa iyo shan dal oo Afrika galbeedka ku yaala ayaa isniintii ku heshiiyey in ciidankooda ay si wada jir ah ay uga howlgalaan si gobolka Sahel looga saaro kooxaha argagixisada, iyadoo Faransana ay ku biiri doonto howlgalkaasi ama ay ku biiri doonto howlgalkaasi 220 askari oo dheeraada. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa baaq u jeediyey hogaamiyaasha dalalka Mali, Burkina Faso, Chad, Niger iyo Mauritania oo ku bohoobay isbahaysiga G5 kadib kulan ka dhacay magaalada Faransa ee ku taala waa dalkaasi Faransiiska oo ku taala magaalada Bow, iyagoo halkaasi kaga dooday sidii loo dardargelin lahaa howlgalka gobolka. xilli Faransiiska nacaybka uu soo tarayo taasi oo ka dhalatay faragelinta Paris ay ku sameysay qaar ka mid ah dalalka Afrika, isla markaana boqolaal askari uga dhintay Faransiiska, ayaa waxa uu madaxweyne Macron ka digay in ciidankiisa uu kala bixi doono gobolka haddii heshiis siyaasadeed oo wadajir ah laga waayo hogaamiyaasha. Faransa oo ah gumayste hore ayaa 4500 oo askari ay ka joogaan dalka Mali, kuwaasi oo sidoo kale ka howlgala gobolka Sahel, laakiin xaaladda nabadgelyada ayaa sii xumaanaysa. dagaalyahano ka tirsan Al-Qaacida iyo Daesh ayaa sidoo kale u jooga gobolka, gaar ahaan dhulka miyiga oo aanay cidna maamulin, taasi oo xaaladda ka dhigtay mid faraha ka sii baxaysa, gaar ahaan dalalka Mali iyo Burkina Faso. ciidanka Faransiiska waxa ay ku guuleysteen 2003 inay ka hortagaan kooxaha kala gedisan oo markaasi qabsaday dalka Mali, gaar ahaan caasimadda dalkaasi ee Bamako, laakiin joogitaankooda gobolka waxa uu xaaladda dalkaasi ka dhigay mid xaaladiisa amni soo xumaysa, taasi oo sidoo kale u gudubtay dalka Niger iyo dalka dariska la ah ee Mali. magaalada Bow oo ah goobta uu ka dhacay shirka ayaa ah halka ay ka soo jeedaan kooxdii ku dhimatay shilka diyaaradeed ee helicopterka oo ciidanka Faransiiska ay leeyihiin, taasi oo bishii November ku burburtay dalka Mali. madaxweyne Macron ayaa sheegay in sidoo kale uu ka walaacsan yahay bixitaanka ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika, maadaama ay ka heli jireen macluumaad sahayda iyo taageerada dhanka howlgallada. haddii Mareykanku uu go'aansado inay ka baxaan Afrika, dhab ahaantii annaga war wanaagsan nooma ahan. Macron ayaa sidaa yiri, isagoo intaasi ku sii daray in uu rajo uu ka qabo in uu markaasi ka dhaadhicin karo madaxweyne Trump uu qayb ka sii ahaado la dagaalanka argagixisada gobolka. wadahadallo la doonayay in lagu soo afmeero khilaafka dalka Liibiya ka jira oo dalka Ruushka ka socday waxa la sheegay in lagu kala dhaqaaqay ayadoon wax heshiis laga gaarin. wadahadalladan oo garwadeenka Ruushka ayaa waxay ahayd in xal loogu gaaro isla markaana lagu soo afmeero khilaafka ama colaadda dalka Liibiya ka taagan ayaa burburay isniintii markii Generaal Khalifa Haftar oo qayb ka ah uu ka baxay. hase yeeshee waxaa weli rajo laga qabaa in mar kale dib loo bilaabi doono, maadaama dhinacyada ay codsadeen in waqti dheeraad la siiyo, oo taasi oo keeni karta in maanta oo Talaado mar kale dib u bilaaban karaan. ra'iisul wasaaraha dalka Liibiya Fayez Sarraj ayaa horay u saxeeyay heshiiska xabad joojinta oo ay ka soo shaqeeyeen xukuumadaha Moscow iyo Ankara. wasiirka arrimaha dibadda dowladda Russia Sergey Lavrov ayaa sheegay in ilaa iyo hadda meel wanaagsan ay wax marayaan, isagoo intaa ku daray in dhinacyada colaadda u dhaxaysa waqti dheeraad dalbadeen dibna la isugu soo laaban doono maanta. wakiilo ka kala socda dalalka Russia iyo Turkiga ayaa gacan ka geysanaya sii socoshada ama hanaanka wadahadallada labada dhinac. xoogaga uu hogaamiyo Generaal Khalifa Haftar ee bariga dalkaasi ku xoogan ayaa
kusii siqaya dhanka caasimada Tripoli ee dalkaasi Liibiya sida laga baahiyay muuqaalo la soo dhigay baraha Facebook ee raacsan xoogaga Xaftar. ma jiro wax macluumaad dheeraad oo intaas ka badan, laakiin website u janjeera dhanka xoogaga Xaftar ayaa sheegay in janaalka uusan qayb ka ahayn xabad joojintii halkaasi laga hirgeliyay axaddeenu soo dhaafnay. wadahadalo aan toos ahayn ayaa ka socday magaalada Moscow kuwaasoo lagu unkay xabad joojinta laga dhex bilaabay dhinacyada dalkaasi oo maalintii axad dhaqan gashay. Turkiga iyo Russia oo kala taageersan dhinacyada colaadda u dhaxaysa Liibiya ayaa ku booriyay inay saxiixaan heshiiskan oo lagu gogol xaarayo sidii guud ahaanba nabad looga islaaxin lahaa dalkaasi Liibiya. wariyaha Jazeera ka tirsan oo magaalada Moscow raaska joogta ayaa waxa ay leedahay saxiixan muhiimka ah waxa uu imaanaya ka hor inta uusan bilaaban shirweynaha caalamiga ee dalka Liibiya xaaladiisa looga hadlayo toddobaadka soo aadan ka furmi doona caasimada wadanka Jarmalka ee Berlin. in ka badan 280 qof oo rayid ah iyo 2,000 oo dagaalamayaal ayaa dhintay halka 146 qof oo shacaban ay barakaceen tan iyo markii xoogaga Xaftar ay duulaan ku soo qaadeen caasimada wadankaasi Liibiya ee Tripoli ee bishii Abriil ee sanadkii aynu ka soo gudubnay sida qaramada midoobay ay sheegtay. madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa sheegay in Turkiga uu ka shaqeynayo sidii heshiiskan muddada gaaban ee xabad joojinta u noqon lahaa mid xal waara oo guud ahaan dalkaasi u horseeda nabad iyo deganaansho. asagoo ka barbar hadlayay ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Giuseppe Conte oo Ankara ku sugan ayuu Erdogan sheegay inay ka qayb gali doono shirka Berlin axadda furmaya kaasi oo looga hadlayo xaaladda bini'aadnimada ee dalkaasi Liibiya lagu gorfeynayo. sidoo kale waxa uu sheegay in shirkaasi ay ka qayb gali doonaan ra'iisul wasaare Conte, madaxweyne Vladimir Putin iyo mas'uuliyiin kale. Liibiya waxay ku jirtay deganaansho la'aan tan iyo markii xukunka laga tuuray hogaamiyihii muddada dheer dalkaasi maamulaya Colonel Muammar al-Gaddafi sanadkii 2011. dalkan shidaalka hodanka kuwa waxa uu qaybsan yahay bariga iyo galbeedka iyadoo dhanka barina ay maamulaan xoogaga ama maleeshiyaadka General Khalifa Xaftar generaalka falaagada iyadoo dagaal kula jira dowladda caalamku aqoonsan yahay oo fadhigeedu yahay magaalada caasimada u ah ee wadankaasi Liibiya ee Trablis. dowladda Mareykanka ayaa waxay dalkeeda ka saartay 21 ka mid ah ardayda la barayo dhanka ciidanka ee dowladda Sacuudiga ka socda kadib weerarkii saldhigga Mareykanka ee dalkaasi ku yaala uu ku qaaday arday Sacuudiga oo halkaasi tababar ciidan ku qaadanaya. 21 ka mid ah saraakiishan Sacuudiga ka socotay ayaa Mareykanka laga saaray kuwaas oo lagu tababarayay dalkaasi kadib dilkii bishii hore ka dhacay saldhigga ciidamada cirka Mareykanku ay ku leeyihiin dalkaasi. dilkan ayaa waxaa geystay 21 sano jir ka tirsanaa ardayda Sacuudiga ee askari tababarka askarnimo halkaasi ku qaadanayay. saraakiishan ayaa waxaa la sheegay inay saraakiishan laguma helin inay wax gacan ah siiyeen ninka toogashada halkaasi ka geystay, laakiin xeeralyaha guud ee Mareykanka William Barr waxa uu sheegay in askarigan ama askartan la tababaray la ogaaday inay haystaan agab tilmaamaya kooxaha argagixisada iyo sidoo kale sawiro aan wanaagsanayn oo carruurtoodu haysato. 3 ka mid ah ciidanka Mareykanka ayaa lagu dilay halka 8 kalena ay dhaawacmeen markii weerar askari Sacuudiga uu ku qaaday 6 bishii December sanadkii 2019. weerarkaasi kadib Mareykanka waxa uu hakiyay tababarkii uu siinayay ardayda Sacuudiga ah dhanka ciidanka loo tababaray. xeeralyaha Mareykanka waxa uu isniintii shir jaraa'id ka sheegay in weerarka saldhigga Mareykanka ee lagu qaaday ee ku yaala deegaanka Pensacola uu ahaa fal argagixiso. waxa uu intaa ku daray in sharikada Apple ay weydiisteen inay u furaan 2 telefoon oo uu lahaa ninka toogashada geystay oo booliiskana sida ay sheegeen
ay ugu dambeyntii dileen islamarkiiba mid ka mid ah telefoonadiisa ayuu xabad ku dhuftay si uu u burburiyo laakiin baaritaanka hay-adda FBI da samaysay ayaa lagu guulaystay in xogtii telefoonka ku jirtay dib loo soo celiyo. Shirkadda Apple ayaa FBI da siisay macluumaadka loo yaqaano iCloud oo laga helo xogta qofka oo qaab online laakiin waxay diiday inay furaan telefoonka ayagoo ku dooday inay waxyeeleynayso kalsoonida ay ku qabi karaan agabkooda sida wargeyska New York Times uu baahiyay. Shirkadda Apple ayaa sidan oo kale sameysay 2016 markii uu dhacay weerarkii San Bernardino oo lagu laayay dad fara badan halkaasi oo uu lagu tuhmay inuu ka dambeeyay nin argagixisada xiriir la leh. Xeeralyaha ayaan sheegay 17 ka mid ah askartan Sacuudiga ee laga saaray dalkooda ay haysteen waxyaabaha ay caanka ku yihiin kooxaha argagixisada. Mr. waxa uu intaa ku daray in boqortooyada Sacuudiga ay gacan ka geystay baaritaanka hawshan islamarkaana saraakiisha Sacuudiga ay go'aansadeen in kuwani aysan ka mid noqon karin ciidamada cirka iyo kuwa badda Sacuudiga. Xeeralyaha waxa uu intaa ku daray in askartan aan wax dembi ah lagaga oogin gudaha Mareykanka laakiin waxa laga yaabaa buu yiri in marka dalkooda ay ku laabtaan la dacweeyo. in ka badan 850 askari oo Sacuudiga ah ayaa haatan tababar ku qaadanaya gudaha dalkaasi Mareykanka oo tababaro kala duwan halkaasi lagu siinayo.